السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل قالي عاديستي إني سليق النبي كهر مريسو وحوال بقى قبنيسو هدي أي سعته حرب كذو حقوقين هي سليق النبي هدي أي فردو كما داش سليق النبي هدي أي فردو هدي أي شقة جورجا هيسو وامل العليسة مروال بقى سليق النبي عليه الصلاة والسلام قبل قالي أي عرف وحا أو قدري ويل لقد دين الإسلام كا يجوري لك احترام ورغم كدين الإسلام كا ويل كا وعرف وقدري مركاي مدود الجوجين قبل dhaqanka wanaagsan iyo saligan badan ee gabadha caadiysatay ayaan xajabinin wiilkan oo calaf ku taray gabadhu wuxuuna go'aansaday sidoo gabadho uga xoobsiiban lahaa fikir dheer kadib ayaa waxa uu fikira oo maskaxda wareejiyaba waxa uu soo baxday inuu gabadha ku xoobsiibto balse uu suuragal weeday inuu gabadha furo maadaama uusan waqti xaadirka awoodin xuquuqdii gabadha culays badanna ku keeni karto dacwadaasi wuxuuna isku dayay inuu ku maareeyo wada kale waxa uu maskaxda wareejiyaba waxay naftiisa iyo shaydaanku u qurxiyeen inuu sameeyo shirqool kaas oo ka takhalusayo gabadhan wanaagsan waxa uu aaday beerta xayawaanka wuxuu ka soo iibsaday 2 mas wuxuuna la soo aaday dhanka guriga labadii mas ayaa waxa uu ku riday boorsada gacanta ee gabadha uuna ku xidhay subaxii gabadhu way qaadatay boorsadii waxayna la aaday suuq muddo kadibna waxa ay ka soo laabatay suuqa waxayna u soo laabatay guriga iyadoo nasiib wanaag furin boorsadii wiilkii waxa uu arkay inay boorsadii xidhan tahay labadii masna sidii ugu jiraan waxa uu ka baqay inay ku dhintaan labada mas boorsada gudaheeda kadibna waxa uu la hadlay gabadhii isagoo leh gacaliso boorsada fur waxaan kuugu riday hadiyad aad qaali u ah gabadhii intay nabiga ku saliday ayaa waxa ay u dhaqaaqday dhanka boorsada kadibna way furtay kadibna waxa bay ka soo saartay halkii labadii mas laba soo dahaba oo aad qaali u ah waxayna soo fiirisay dhanka ninkeedii iyada oo u mahad celinaysa wiilkii ayaa yaabay wuxuuna fiiriyay dhanka xaaska isagoo wajigiisa ka muuqda yaab iyo makaag ayaa waxa ay weydiisay gacaliya maxad la yaabtay miyaadan adigu iigu ridin hadiyadan qaaliga ah boorsada wuxuu ugu jawaabay haa kadibna waxa uu qabsaday oohin dheer maalinka kadibna noloshiisii waxay isu bedeshay dhanka kale waxaanu noqday shakhsi aad u cibaado badan oo u taaca badan oo ahlu khayra taawade commentiga noogu soo qor saliga nabiga si aanu ogaano inaad kamid tahay dadka jecel xabiibka sallallahu alayhi wasallam